Assalaamu calaykum. Haweeneydii ugu horeysay ee ku guuleysatay jaa'isada Nobel Prize-ka ahna qofkii ugu horeeyay ee ku guuleysta 2 Nobel Prize. Ku soo dhawaada muuqaalka. Marie Curie waxay ku barbaartay Warsaw, Poland, ahna meesha ay ku dhalatay sanadkii 1867 bishii November 7. Labadeeda waalidba waxay ahaayeen macallimiin. Xilligaas Poland waxaa xukumi jiray Russia. Xitaa dadka looma ogolayn inay wax ku akhriyaan ama ay ku qoraan luqadda Boolishka. Aabaheed shaqadii ayuu waayay sababtoo ah wuxuu ahaa qof raaca xukunka Boolishka. Mary marka ay gaartay 10 sano, walaasheed ka weyn ee Sofia ayaa xanuunsatay, kadibna waxay u geeriyootay xanuunka typhus. 2 sano kadib waxaa geeriyooday hooyadeed. Mary waqtigan wuxuu u ahaa waqti aad u adag. Mary markay dhamaysay iskuulka sare waxay rabtay inay ku biirto jaamacad. Xilligaas waxaa jiray jaamacad caan ah oo ku taalla Paris lagu magacaabi jiray Sorbonne. Laakiin Mary ma haysan lacag ay ku aado jaamacadaas. Laakiin waxay isku raaceen in ay caawiso walaasheed Bronislawa in ay aado iskuulka Faransiiska si ay u caawiso walaasheed Mary marka ay qalin jabiso. Waxay ku qaadatay 6 sano, laakiin Bronislawa markii ay qalin jabisay waxay noqotay doctor. Mary waxay aaday France sanadkii 1891. 3 sano kadib waxay digri ka qaadatay physics. 1894 Mary waxay la kulantay Pierre Curie. Asna wuxuu ahaa saynisyahan. Sanad kadib way isguursadeen waxayna dhaleen gabadh marka hore. Gabadhaasna waxay u bixiyeen Irene. Saynisyahano badan oo ku jiro nin lagu magacaabi jiray Becquerel ayaa waxay sameeyeen tijaabooyin waxayna heleen in falaaro laga daayo curyaha ama elementiga uranium. Mary ayadana waxay bilowday tijaabooyin inay sameyso. Maalin Mary waxay baaraysay maado loo yaqaano pitchblende. Waxay filaysay inay ku jiraan dhowr falaaro oo ka yimaada uranium-ka ee pitchblende. Laakiin Mary waxay heshay falaaro badan. Isla markii waxay ogaatay meesha in ay ku jiraan wax cusub, elementiyo cusub in ay ku jiraan pitchblende. Mary iyo ninkeeda waxay ku qaadatay saacado badan inay baaraan maadada loo yaqaano pitchblende. Gabagabadii waxay heleen 2 elementi cusub inay ku jiraan pitchblende. Periodic table-kana waxay ku soo kordhiyeen 2 element. Labadaas elementi mid ka mid ah Mary waxay u bixisay polonium, waxayna ka keentay dhulkeeda Poland. Midka kalena waxay u bixisay radium, sababtoo ah wuxuu bixinayay falaaro adag. Marie Curie iyo Pierre Curie ayaa la yimid ereyga radioactivity si ay u qeexaan elementiska bixinaya falaaraha adag. 1903 Marie Curie iyo Pierre Curie ayaa ku guuleystay jaa'isada Nobel Prize-ka, waxayna ku qaateen physics. Sidaa darteed Marie Curie waxay noqotay gabadhii ama naagtii ugu horeysay ee ku guuleysatay jaa'isada Nobel Prize. 1911 Marie Curie waxay ku guuleysatay Nobel Prize tii labaad, waxayna ku qaadatay chemistry. Marie Curie waxay noqotay qof caan ah. Saynisyahanadana waxay uga imaan jireen caalamka oo dhan si ay uga bartaan radioactivity. Marie Curie waxay ku geeriyootay Passy hanka Soviet ee Faransiiska sanadku markuu ahaa 1934 bishii July 4. Mary waxay professor physics ka noqotay jaamacaddii ay ka baxday ee Sorbonne markii uu ninkeedii dhintay, waxayna noqotay naagtii ugu horeysa ee qabata xilkan. Sida aan u jeedno, Marie Curie waxay soo martay xaalad aad u adag, haddana waxay ku guuleysatay 2 Nobel Prize. Weligaa ha isdhiibin.
xaalad walba waa laga gudbi karaa. Daciif ma tihid, waxaad tahay qof adag. Ha isliidin, haddii aad isliidid waxaad tahay qof liita. haddii aad iskaraamayso waxaad tahay qof karaamo leh. man sharafa nafsahu fahuwa shariifun. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.